بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام الأمانتين الصومالي وين ميلاد جوكتان با سيدان أبلان سنين با نحالي وانيجي برنامج كي كلا قيب صدي نشيقة ووحو عديه وحو يري قبري هاي انتاد قورستو nin muqayilo marfisiyada fadhiya oo sigaariya caba oo shaqadiisuna ay tahay fadhi ku dirir oo reer iyo carruurba aan ka warqabin ayaad hadhow intaad soo fadhiisata waxaad leedahay raggii Soomaaliyeed sidan iyo sidan iyo sidan markaasaa nin meesha maraya wuxuu yidhi oo dee raggaa la sheegaya ka mid ah warheedha miyaan naloo ogolayn dumarka wanaagsan inaan guursano. sheekh hadalkiisii ayaa uu sii watay wuxuu yidhi warnimayo intaad guursataan gabar afka casaysanaysa oo habeen walba xaflad dhex taagan xilligay doontana gurigeeda ka baxda cid walbaana ay gurigeeda timaado ayaad leedihiin dumarkii Soomaaliyeed baa sidan iyo sidan ah. gabar meesha maraysaa waxay tiri waa wadaadadii xag jirka ahaa xorriyaddii dumarka ayuu ku socdaa. haddaan ku soo noqday markay barnaamijkeygii ahaa arrintii in dhaweydba socotay ninkaa dhallinyarada ee saxafiga ah ee la xiray ee coldoon waxaan rabaa inaan mid idhaahdo gabadha Fadxiya la yiraahdo oon dhowr jeer aan kalibiye ay leedahay daawaday oo haddana arrintan aad macnaha loo wadwaday aan arkayay ayadana waxaan rabaa inaan mid idhaahdo. haddaan ku hormaro Fadxiya oo habeen hore miyaa mise xalay kilib ay kasoo duubtay Dubay aan dhageystay hadalladeedii horta dadkii Soomaalida waxaa fiican waxyaabaha diinta ah oo diinta quseeya inaan lagu degdegin oo qofka xukun diimeed oo ama diinta looga saarayo ama samcadiisa lagu dhibaataynayo macnaha inaan la ridin ayadoo aanan wax badan la hubsan. qofka aqoon la-aan xagga diinta uu u leeyahay waxyaabo way kaga iman karaan. hadday taa dhacdana qofka laftirkiisa waxaa fiican muslimka markuu ogaado arrinkan inay arrin diineed ay tahay wixii ka dhacayna uu qalad ahaa inuu alle subxaana wa tacaala u noqdo oo uu dembi dhaaf weydiisto uusan qofku maaragtay wax iska dhici arrintiisa uusan ku dabaalin oo wixii ka dhacay wax ka weyn uusan ka daba keenin. marka qolooyinkii gabadha aadka weerarka markiiba ku qaaday iyadoo la heli karo iyada iyo in la mid ahba markii meediyaha ay dhacaan iyadoo la heli karo qofkii in xiriir kale lala sameeyo hadduu qalad ku jiro aqli celin loo sameeyo si hoose in markiiba meediyaha lagu boobo arrintaa arrin qurux badan maaha runtii mana soo dhaweyneyno. hadalkeedii waxaa ku jiray macnaha inaanan qofka dadka asxaabiyaal bay soo qabsatay Cumar iyo rag la mid ah oo markoodii hore waxay ahaayeen iyadoo dee waxaa fiican dadka Soomaalida waxay wax ku fahmaan farta waaweyn waxaa la soo qaatay gabadha sawiro hore iyadoo dhalinyaro ah maasha Allah hadda dee waa gabadha xijaaban waxayna u soo qaadatay hadal fiican bay soo qaadatay inaysan shalay maanta aysan ahayn. marka iyadana waxaan dhahayaa Fadxiya haddii arrinku wixii nidaam ah oo maadi ah laga doodayo dadku waa la isla celcelin karaa laakiin mar haddii arrinku uu diin noqdo inaydan ku talax tegin baan message-kan u gudbinaya ay tahay. adigana wixii hore aad ka soo gudubtay oo hadda aad meel fiican marayso oo gabadha xijaaban oo barnaamijyo runtii aad u fiicanna ka hadla aad tahay
inaadan kusii fogaan qodobka isaga ah oo aad bannaanka ka yara istaagto. Fariinta aan u diray iyadu waa intaa. Coldoon horta wixii lagu xiray, Soomaalidu waxay tirahdaa dariskaaga waa ilaalo aan lagu dirsan. Anigu dadka waxaan ka mid ahay Somaliland ka warqabeenka oo dariska la ah, dee Sool iyo Sanaag iyo Cayn waad ogtihiinoo haddaan kaftan ku darsado waa Somaliland bay daris la tahay. Marka waa ka warraynaa waxyaabaha Burca iyo Hargeysa iyo ka socda. Ninka la yidhaahdo weriye Coldoon, qaabkii loo xiray, waxa lagu xiray, waddada loo soo maray intaba qalad bay ahayd. Marka waxaa fiican meesha maadaama maamul iyo nidaam uu ka jiro, nidaamka iyo maamulka in hadda waxay u muuqataa madaxweynuhu maalinood markuu hadlayey, markii dee aada loo fiiriyay hadalkaas, Coldoon iyo madaxweynaha inay si toos u wada hadlayeen oo raggii kale dadkii ka sokeeyey, maadaama Coldoon uu muddo ka hadlayey iskuulka iyo jaamacadda, waxaa la rabay barnaamijkaas siduu isagaba uu sheegay guddi in loo saaro, lasoo turxaan bixiyo. waalidiinta ciyaalkan dhalay inay dee ciyaalkoodii ay dabagal ku sameeyaan laftirkooda ay ka hadlaan. dadku waa dad islaam ah, waddanku waa waddan islaam ah. Coldoon waxaan u aragnaa in lagu raaligelinayo dad gaala ah xarigiisa, qof islaam ah oo xaqa aan ku dhaqanno, waxa aan iska qaban xun yiri, in qof gaal ah lagu raaligeliyo qof islaam ah, in la cabiidiyo la xiro oo xabsi la geeyo, wax subxaanalla weeye. wax sii jirayana ma aha, ma sii soconayso runtii. arrin sii soconaysa ma. Ninka la yidhahdo Coldoonna wuxuu ka dhaxlayaa sumcad iyo taageero fara badan inuu ku helo, iyo ajar iyo xasanaad uu ilaahay agtiisa uu maaragtay kaga helayo. marka waxaan dhihi lahayn oo annaga haddaan nahay indhaha shacabka, talada aan soo jeedinayno waxay tahay muwaadinkaas Soomaaliyeed ee sida xaqdarrada ah lagu xiray, xorriyaddiisii in loo soo celiyo. waxaan arkayay qoraal wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland ay ku soo saartay oo tiri aniga arrintaa dabagal ku samaynayna innagoo kaashanayna wasaaradda waxbarashada. fariintan u diraya waxay tahay dabagalkaasi dee inuusan ahayn mid la baaraya manhajka. iyaguba dadka barnaamijyada ka shaqeeya manhajkooda ay wax ku barayaan, ma raba dee waxa kuma cadda in baaritaanku uu noqonin guryaha iyo goobta la degan yahay, laakiin ay noqoto dadkan waxa lagu eedeeyey meesha gacanta ku haya dad waxaa ku sifaysan ma yihiin mise ma aha. waxaan waa wax istiraatiijiyad dheer laga leeyahay, wax kusoo booda maaha, step by step. iskuulka iyo waxaa laga furay meel magaalada ka baxsan, dadkii waxaa loo abuuray nolol xorriyadooda ah oo aan ku salaysanayn maaragtay. dhalinyaradu waa la yaqaanaa, dadku bini aadanka islaamku waxbuu ku nool yahay, dhalinyaradu waxbay ku nooshahay. marka in anoo soo ururinaya warkayga iyo fariinteyda ay noqoto in baaritaankiinu uu noqdo dadkaas. sida hadda ka warrayno, arday baa hadasheen, anigu ma arag, laakiin wararkii soo gaaraya dad arday ah inay hadleen oo meesha ay sheegeen wax uun sheegeen. dadkii la eedeynayey inay qaarkood gabadhii maaragtay inay ka tagtay meesha ka baxday. marka wasaaraddana arrintaasaan rabaa inay baaritaankooda ay sidaas qaabka ay ku darsadaan oo aysan oranin hadhow manhajkiina waxba maaragtay kuma qorayn, guryahoodiina guryo fiican bay ahaayeen, inaysan oranin. marka waxaa laydinku durayaa in maaragtay dowladda muuse oo Coldoon iyo xiratay oo madaxweynihiina uu meesha tegey uu yiri arrinkan waa taageersannahay, anaga waxaan ka mas-uul ah, inaydan arrintii aydan ansixinin arrinka laga duulayo. intaas taasaana tuhun keenaysa inaysan dadku kalsooni badan idinku qabin. barnaamijkayga maanta waxaan rabaa inaan intaan kusoo ururiyo. aad baan idin salaamay. dad islaamaynu nahay, ilaahi subxaana wa tacaala aynu ka cabsanno, sunnadii nebiga suuban sala allahu calayhi wasalam aynu raacno. xilligu waxaa lagu dhow yahay
waxaa muuqanayo dhan oo wadankii laga soo sheegayo ama qurbaha ha ahaato ama wadankeena ha ahaato waa wax runtii aada cabsi u leh ninka iimaan leh oo cabsi badan gelinaysa. marka aynu meesha la aadi doono aynu u horumarsanno wax wanaagsan, caruurteennana aan ka warrayno. aad baan idin salaamay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.